kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad inaga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona midowga musharaxiinta oo cambaariyay tilaabadii uu qaaday madaxweyne Farmaajo wasiirka arrimaha dibadda ee Netherlands oo iscaashisay dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay in Fahad Yaasiin lagu xanibay Djibouti daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Djibouti ay xirtay taliyii hore ee hay'adda sirdoonka NISA ee Soomaaliya Fahad Yaasiin ee dhawaan loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo afhayeen u hadlay madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aan sii xoojinaynin xiriirka labada dowladood waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka xuntahay falka ku xadgudubka ah oo ay xuquuqda musaafiriinta iyo shuruudaha caalamiga ah sida uu hadalka u dhigay war-saxaafadeed ka soo baxay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Djibouti ay Fahad Yaasiin ku xanibtay garoonka diyaaradaha ee Djibouti dhinaca kale ilwareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugnaa Djibouti ayaa inoo xaqiijiyay in Fahad Yaasiin oo ay la socdeen ilaa 40 qof diyaaradda Turkish Airlines iyagoo ku sii jeeday magaalada Muqdisho hase yeeshee diyaaradda ayaa heshay amar ah inaysan rakaabkaasi imaan karin Muqdisho sarkaal ka tirsan Djibouti oo diiday magaciisa in la sheego sababtoo ah lama ogolo inuu la hadlo warbaahinta ayaa sheegay in haddii Fahad iyo waftigii la socday aysan u safri karin Muqdisho ay ku celin doonaan halkii uu asal ahaan safarkiisu ka soo bilowday oo ah magaalada Istanbul ee dalka Turkiga dhinaca kale xogayaha guud ee xisbiga RBB ahna wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Djibouti Ilyas Maxamed Dawlah ayaa bartiisa Twitter kaga soo jawaabay eeda kaga timid hay'adda madaxtooyada Soomaaliya maadaama aad tahay sarkaal sare oo ka tirsan fila Soomaaliya iyo isu duwaha warbaahinta waxaa si walaaltinimo leh kaga codsanaya inaad ka jawaabtid hadallada aan hubin ee aan salka lahayn waxaa ku wanaagsan inaad xaqiiqda raadisid Djibouti waxay dhawaan soo saari doontaa hadal rasmi ah oo ka soo baxa wasiirka arrimaha dibadda ayaa lagu yiri fariinta wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Netherlands Secretary Kaag ayaa iscaashisay kadib markii aqalka hoose ee baarlamaanka uu meel mariyay mooshin cambaareen ah oo ka dhan ah dowladda taasi oo ku aadan sida ay u maareysay dadgureynta shacabkii u dhashay dalkaasi ee ku sugnaa dalka Afghanistan kadib markii ay kooxda Taliban la wareegtay xukuumadda dalkaasi Kaag ayaa ahayd wasiir ka tirsan xukuumadda ku meel gaarka ah ee wasaare Mark Rutte haweenadan ayaa sidoo kale hogaamiye u ahayd xisbiga D66 waxaana si dhow qayb uga ahayd wadaxaajoodka lagu doonayay in lagu dhiso isbahaysi cusub oo talada waddankaasi haya kadib doorashadii guud ee ka dhacday bishii 3aad ee sanadkan waxay sheegtay inay go'aanka baarlamaanka kadib ay go'aansatay inay mas'uuliyadda la xiriirto gobaadka dhanka dowladda dusha saarata maadaama ay wasaaradda ay hogaaminayso ay si hagar ah ugu xil saaran tahay arrimaha dadgureynta midowga musharaxiinta ayaa sheegay inay cambareynayaan qoraalkii ka soo baxay madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo kaasi oo ku sheegay inuu hakiyay awoodii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaana midowga musharaxiinta ay qoraalkaasi ku tilmaameen sharci darro warmurtiyeed goordhabeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayaa u qornaa sidata golaha midowga musharaxiinta wuxuu si kulul uga cambareynayaa qoraalka dastuuriga baarlamaanka ee 16 bishii 9aad 2011 ka soo baxay xafiiska madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Abdullaahi Farmaajo kaasi oo dalka u horseedaya xasarad siyaasadeed iyo qalalaase amni isla markaana halis gelinayo qarannimada Soomaaliya wuxuu kale qoraalkaasi cadeen u yahay in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday uusan weli ku quusan damiciisa ahaa inuu helo muddo kororsi sharci darro ah sida ku cad dastuurka dalka madaxweynaha muddaxileed buuxa leh ayaa awood u leh inuu xilka ka qaado ama shaqo joojin ku sameeyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday wuxuu si ula kac ah u jabiyay dastuurka kamana run sheegin qodobada dastuuriga 87 iyo 90 ee qoraalkiisu ku daliishaday kuwaasi oo meelna kaga qorneen xil joojin ama xilka qaadis ra'iisul wasaare haddaba golaha wuxuu cadeynayaa mowqifkiisa ku aadan qoraalkii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday wuxuuna u arkaa in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday uu si bareer ah ugu tuntay dastuurka dalka kagana been sheegay qodobadaasi taasi oo kaga markhaati kacaysa inuusan ka soo bixin mas'uuliyadiisa ilaalinta dastuurka uuna noqday shakhsi aan deganaansho siyaasadeed lahayn oo aan lagu aamini karin xilka ugu sareeya ee dalka
in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday uu xagaldaacinayo cadaalad u helidda kiiska Ikraan Tahliil. labo siinaya eedeysanayaasha ku lugta leh kiiska isla markaana carqaladeynaya habsami u socodka howlaha doorashooyinka gaar ahaan kuwa gobolada waqooyi ee Somaliland iyo beelaha Banaadir oo labaduba ka dhacaya magaalada Muqdisho. saddex in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday uu si joogto ah u jabiyay heshiiskii la gaaray 27 Maaj waaqina awoodda ra'iisul wasaaraha isla markaana awood gaar ah siinayo shabakado qarsoon oo barbar socdo howlaha ra'iisul wasaaraha kuwaasi oo la qorsheeyay inay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaado uu baawo doorashooyinka. in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uu dardar geliyo howlaha doorashooyinka iyo cadaaladda u helidda kiiska Ikraan Tahliil. laba in golaha wadatashiga qaranka uu shir degdeg ah isugu yimaado si loo howlgeliyo qorshaha doorashooyinka dalka loogana saaro xaaladaha kala guurka iyo qalqal siyaasadeed. saddex in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday loo aqoonsado isaga iyo la taliyayaasha qaswadayaal lid ku ah xasiloonida dalka. afar in ciidanka qalabka sida ay ka fogaadaan milka siyaasadda sida uu qabo qodobka 127 ee dastuurka dalka iyo heshiiskii 27 Maaj. shan in shacabka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka garab istaagaan ra'iisul wasaaraha sida uu cadaalad ugu heli lahaa kiiska Ikraan Tahliil iyo sidii degdeg loogu qaban lahaa doorasho la isku raacsan yahay oo jabi xasilooni iyo nabad leh ku dhacda. lix in laga fogaado wax kasta oo xasarad iyo dhaliilo colaadeed abuuri kara meelna laga soo wada jeesto cid kasta oo isku dayda inay dalka qalalaase amni ku abuurto. toddoba golaha mar kasta wuxuu diyaar u yahay tilaabo kasta oo lagu xoojinayo amniga iyo xasiloonida dalka. Intaas ayaan kusoo afmeerayaa war wixii dal iyo daafaha caalamkan idinkaga hanay. wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray oo idiin akhrinaya anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah.